soo dhawaada barnaamijka Hindiisa ee qaybtan waxaa ku tartamaya ganacsiyada kala ah Astorsia Shower oo matalayo Cabdinuur Axmed, Olhaye Dental Clinic oo matalayo Abdiraxmaan Olhaye, Cusub Animal oo matalayo Usmaan Suleymaan, Bite Famous oo matalayo Cabdixamiid Mucallim. Haddaba inta aan bilaabin tartankan aan barano guddiga garsoorka barnaamijka Hindiisa. عبدالحكيم محمد إسماعيل وحانا هاي أساسها يقدوميها شركة حديد إندستريز جروب. حديد مربية هاي فكرة ما أنت نوحي كمت هاي شركتها أبوه الرئية أما أبوه عندنا عبرتها وحصار كدلكينا وحان كمت هاي كرسورياشا هندسة لما أنت ترتمياشا وحانون رجيني أقول مقعي دكتور عبد الرحمن حسن يوسف waxaan ahay aasaasaha Mira International Schools iyo Bulshakaab Clinic. Hadda waxaan ahay madaxa waxbarashada Iris Hub iyo gudoomiyaha Cabdicaziz Youth Center. In ka badan 110 shirkadood baan 5 sano ugu dambeysay waxaan ka ahaa fikradahooda ganacsi garsoore iyo qiimeeye. magacaygu waa Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan waxaan ahay aasaasaha iyo maamulka xarunta Kaafiya Center waxay u istaagtay inay wax badan ka bedesho dhanka shaqo la'aanta magaalada iyo qoysaska Soomaaliyeed guud ahaan waxaa jirto oraah dahabi ah oo leeyahay Robert Collin oo leh guushu waxay ka imaataa isku darka hoola yaryar iyo joogteentooda. magacaygu waa Amira Aweys Abukar waxaan ahaa milkiilaha Amira Lab and Pharma waxa kale oo ahay online coach dhanka nutrition-ka marka ahaa ardayga waxaa jiray riyooyin aan lahaa taasoo maanta miro dhashay waxaa jirta oraah dahabi ah oo oranaysa guul walba waxa ay ka bilaabataa riyo waxa ayna ku dhamaataa fulin ka rumey riyadaada inta ay ruuxda kugu jirto taa oo mar walba igu dhiirigelin jirtay ka rumeynta riyooyinkayga. Usmaan Suleymaan aadan loo yaqaano Sahal Cirro dhigta jaamacadda SIU kana barta culumta beeraha iyo deegaanka. Shirkadeena magaceedu waxa weeye ama kambanigeyga Cusub Animal Fodder oo soo saaro calafka xoolaha. Mustaqbalka waxaan rajayn doonaa inaan noqono kambaniga ugu fiicnaa ee soo saaro calafka xoolaha hadii Ilaahay yiraahdo. Magacaygu waa Usmaan Suleymaan aadan. Shirkadeena magaceedu waxa weeye Cusub Animal Fodder. waxyaabaha aan ku tartamayno waxa weeye waa calafka xoolaha waxaana loo yaqaano hydroponic fodder. Cooskan waxaa la soo saarayaa bilaa carro kaliya waxaa lagu soo saarayaa biyo kaliya within maxay ahayd hal isbuuc gudaheedana waa lagu guran ama harvesting lagu sameynaa. Cooskan wuxuu leeyahay protein wuxuu leeyahay minerals iyo energy. waxaa soo saaraynaa galleyda qamadiga iyo masagada. sida wada ogsoontihiin wadanka abaaro fara badan ka jirta. xilliyada abaaraha marka la gaaro annaga laftirkeena waxaan u baahannahay caano hilib iyo maxay ahayd subag. xoolihii haddaanay calaf haysan caanaha iyo subaga iyo hilib midna lama helayo sida wada ogsoonnahay. siiso challenge maabkeena waxa weeye main cause-keena waxa weeye loss or production of animal fodder inaysan jirin ba wax la yiraahdo calaf ama maxay ahayd ishaq production ama animal fodder aan jirin ba. Problemku waxa weeye drought waaye abaartu weeye. Sequence-keena waxa weeye low production livestock inuu yar yahay maxay ahayd wax soo saarka oo xoolaha less nutritive livestock sidoo kale nafaqadii sidoo kale starvation macluul inay jirto. List of production and services waxa weeye waxaan soo saarayn waxa weeye hydroponic fodder the main asaa kaasa noogu horeeya sidoo kale mustaqbalka ama maxay tahay future waxaan soo saari doonaa silage fodder, hay fodder, straw, urea molasses treatment iyo urea molasses block. golden circle-keena waxa weeye horta waxaan soo saaran maxay yihiin waxa weeye waa animal fodder production waa calafka xoolaha. how maxay yihiin sidee macnaha by hydroponic system isticmaalayna why ba su'aasha isweydiinta mudan waa why
ayadana waxa weeye to maintain our livestock production by nutritional fodder inaan soo ama joogtayno wax soo saarka ayadoo loo fiirinayo calafka xoolaha oo nutrition oo nafaqo leh. User personkan waxa weeye what goal is example in la helo calaf xoolaad oo tayo sare leh. Challengeski waxa weeye xoolo dhaqato oo maxay ahayd oo aan fikrad badan ka haysan hydroponic fodder. What can we do in xoolo dhaqatada barno wax soo saarkeena iyo sidii maxay ahayd oo ii sheeg xoolahooda nafaqadooda u siyaadin lahaayeen. Age oo kale markaa fiirisay 25 ilaa 60 u fiirinayna educationka nama qusay sababta waa xoololey familka not important weeye. Real quitis waxa weeye in nolosha lagu loolamo waa lama huraan haddii laga badiyana dee waxa qornaa marketka ama maxay ahayd oo ii sheeg messagekinka waxa weeye high quality and cheap iyo sustainable. Area waxa weeye Banaadir area xoolo dhaqato job title-ka maxay ahayd ii sheeg communication waxa weeye social media iyo TV telephone isticmaali doona. Maxay ahayd ii sheeg common objective wuxuu noqon doonaa inaysan aqoon badan ka haysan xoolo dhaqatada hydroponic fodder. Elevationki waxay noqon doonaa in xoolo dhaqatada nafaqo xoolahooda nafaqo badan ka heli doonaan calafka waqti kastana uu noqon doona mid joogta. Per servicekan wuxuu noqon doonaa noticing with visual inaan sameyno sidoo kale free delivery inaan sameyno satisfaction and customer inaan sameyno. Per service inta lagu jiro iyo during-ka iyo post service-ka. Digital market canvas-ka markaa fiirino waxaan sameynaynaa direction-ka sustainable quality oo maxay ahayd high quality leh oo proper time leh alaf jilicsan oo stable ah oo high nutrition oo qiimo jaban leh. Social media sidoo kale waa isticmaali doona. Sidoo kale target audience wuxuu noqon doonaa xoolo dhaqatada customer service oo isticmaali doona. Objective waxaa in la helo calaf xoolo oo nafaqadiisa tayadiisa ama qiimo jaban ama mar walba la heli karo. Detailka waxaan isticmaalaynaa tiradii iyo qiimaha iyo wadarta guud noo qoran sida u jeedaan wadarta guud waxay noqon doontaa ama lacagtii intaas nooga baxaayo sida jiingada alwaaxa tiirarka iyo masaamiirta waxay noqon doontaa 1945. First year sales forecast waxaan imin doonaa sanadka sida idinka muuqato chartiga daily waxaan gadaynaa $50 bishii waa $1500 sanadkiina waa $1800. Summary Asab Animal Fodder waa shirkad khaas ah loo leeyahay maxay ahayd oo kana shaqeyn doonto soo saarista calafka xoolaha. Sidoo kale dhimantiisu badan yahay maxay ahayd suppliers aad u yar yihiin. Waa maasantii. Cusmaan aad u mahadsan tahay fikradaada markii calafka lagu soo saarayo hydroponic system waxay leedahay dhibaatooyin badan. Dhibaatooyinkaas maxaa ka mid ah sideena ku maareyn rabtaa? Waxaa jira horta marar qaar waxyaaba ugu badan in biyaha la waayo sababtoo anaga carrama isticmaalayno waxaan isticmaalayno waa biyo kaliya. Biyahaas haddii la waayo dhibaatada ugu weyn aan ka cabsan karno ama maanta waxay tahay ii sheeg biyahaas waay. biyaha laftirkooda waxaa jira cudurro badan oo ka dhashta waterborne disease la dhaho. Cuduradaas oo kale sidee rabtiin inaad ku maaraysiin maadaama biyo aad isticmaalaysiin? Horta waxaa jira nin bartay xanaanada xoolaha oo barnaamijyadaas aad u yaqaano oo team ku tirsan waxyaabihii treatment iyo daawo iyo disease waxyaabaasna isagaa noogu fiican si fiican u yaqaana kulley wixii hortag ah iyo wixii loo baahan yahay. koronto ma isticmaali rabtiin? Maya. Usmaan Suleymaan waa mahadsan tahay soo jeedintaada quruxda badan. hal isbuuc ayaad goosanaysaan sad noo sheegtay waxaadna isticmaalaysaan biyo keliya marka hydroponic haddii aad sharxaad ka bixiso adoo soo koobaya waxaa tiri carro lama isticmaalayo oo humus iyo waxaas lama isticmaalayo kiimkana lama isticmaalayo soo ma? Maya waxaa la isticmaalaa marar qaar koodii waxaa system la maraya jira oo processka may hydroponic wuxuu yahay aslan hydroponic sidaan sheegnayba waa calaf xoolaad oo lagu sameeyo galleyda abuurkiisa ama seedkiisa qamadida ilaahay kuma darnaadee waxa la yiraahdo sorghumka ama masagada. Maxaa ku daraysaan haddaan qamadi biyo ku shubo caws ma noqonaysa ilaa? Waxaa jira koodii horta abuurka soo gadanaysaa markaa keentid waxaa ku shubaysaa ii sheeg weel ama maxay ahayd ii sheeg sakeel saa u taqaanidba kadibna waxaa ku daraysaa ii sheeg cusbo muddo saacado kadib adiga saacadaha ma sheegaya laakiin kadib adiga waxaad samaynaysaa
stress waxa la yidhahdaa jira ما هو بروسس كذا شرحين كيميكا واحد ما استعمالها مسواك واحد هذا بعرمينا يوم cusbadaas oo u isticmaali karaa iyadana waxaa ugu talagalay inaan kaga hortago fangayga sababtoo ah haddaanay cusbadaas iyo maxay isticmaalin baash waxaa ka dhalanaya ii sheeg fangay ku dhalanaya kadib waxay noqonaysaa mid kulmay jirtay inaad maalintii soo saari doontaan maalinkii hore maalinka waxaa soo saaraynaa 200 kilogram 200 kilogram exactly 200 kilogram meeqa litro biyo bay u baahan tahay halkii kiilo waxaa ku filan maalintii 1 litr hal 1 day halkii kiilo دكتور سؤال كوديس بياس ما كوا طوبة عادية نقولنا مش ما صحة أما كون ما بيها عادي استعمالنا وحي أنت كون أنا وصبر ويني وصلت كلورين بكسودر عندي كلورين يلا بيه كلورين لا تكوش بتكور حتى واحد ترى أنا وحن بير إنه مالنتي أنت لا تني سدد عك ده هالكي عاي وحلو شو بكرة هذه 6 كيلو كله ما بيه كلورين هذا استعمال عشان نب كينيسا عوسك والله أنا هذا كم أركن أنت هنسوي صوته ضد هذا بلو كمان هين لو سنة 6 سنة experience ولا وأنا واحد باتين كم أركن أنا أنت أصلا بيه عادي تبدأ استعماله وما سنتها aad baa mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa 1945 taas waxaan idin dirnay waxay ahayd first year startup budget ma bil baa mise waa sanad waxa meesha ku soo qortay hal mar igeeya tan laftigeeda waa taagan tahay ba tana 1945 ta wadarta ama bil baa mise waa sanad horta waxaa jira guryo dhismaa meesha ku jirta tubgelin baa ku jirta adu all waxay dhan isugu jiraan yaa waxaan ma bil baa marka xisaabtu mise waa sanad su'aasha ka jawaab xisaabtan waxay noqonaysaa ii sheeg bishii marka 12 guriga maal dhismaa ku dartid okay waa bil 12 marka aan ku dhufano waxay noqonaysaa 23340 dollar marka businesskaagu wuxuu u baahan yahay baan u maleynayaa sanadkii waa 23340 dollar buu sanadkii u baahan yahay businesskaagu waxay isku dhufatay ustaadi adiga waxa igu tiri 1945 ta waa bil 12 baan ku hadda ustaadi waxa sameeysaa anu bil way wax ma dhiso wata mugta dhismaha iga jar oo waxa iga jarta abuur iyo waxa ii xisaabisaa ilaahay kuma darnaade bihi abuurku 756 oo bil walba ma isticmaalaysid ha iyada kaligeed uga soo qabo okay waxyaabo badan bay iga jarmaya oo jiingad bay iga jarmaysa oo tiirar iyo masaamir waxyaabo badan bay iga jar ilaahay bil wal ma isticmaalee waxa soo noqonaya recurrentiga ah labaan hadda abuur bas bay igu soo laalaabanaya iyo librka shaqaalaha $100 marka 756 lagu daray 856 maxaa kaloo soo noqonaya biyaha soo noqonaya biyaha aniga $50 isticmaalay biyo intee $50 marka $50 inta ku dar 906 hydrogen peroxide ka iyo $1 wey ma yad 15 ma 15 halka kugu qoran okay ku dhufo 15 baan ku daraya $10 ku dhufo ku daro ku dar saande kale traceka iyo misaamiirta iyo soo laabanaya waxa soo dhan ka tageen ha dayta taas ugu dartay capitalkii weey 921 daasaan marka waxaan ku dhufanaynaa 921 daasaan 12 bilood ku dhufanaynaa 12 dib u soo cad forecasting ka daba tag igeeya bal slide ka xiga slide ka xiga bal next bishii $50 soo saarna daily aan yiraahday sababta waxaan gadaynaa 200 kilogram lagu dhuftay 0.25 waxay imaanaysaa maalinkii $50 sii dhufo bishii 1500 imaanaysaa sana marka ku dhufatayna $1800 faa'iido marka inta ku soo baxaysa marka laga jaro sanadka wax ku soo gala horta waxaa jirta haddii aan maxay ahayd ii sheeg bishii ama 6 bilood aan waxba qaadan annagu oo shaqaalaha bis maxay ahayd halka qof aan wax siino iyo korontada wixii iska bixino $300 milyan oo haraysa waxay imaanaysa slide ka soo socda oo calculator ma istisuriya
waa Cabdixamiid Macallim waxaan ka socdaa shirkadda Byteso Technology shirkaddu waxay soo bandhigaysaa software cusub oo la magac baxay Virtual Identification Management System mustaqbalka waxaan rabnaa inaan revolution ku sameyno ID cardka caadiga ah ee la wato inaan u bedelno qaab digital ah si aan u dhigno more secure less costly more effective waxaan rabnaa inaan gaarsiino dhammaan xarumaha looga baahan yahay ID card oo virtual ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdixamiid Macallim waxaan ka socdaa shirkadda Byteso. Next slide-ka xiga. Roundigii hore waxaa sheegnay in aan revolution ku sameyn doono wayga loo jeegarayo identity-ga qofka. Laakiin maana sheegin specifically how. Waxaan rabnaa wareegan dhammaadkiisa inaan kusoo koobno 4 sentence. Next. challenge mapping-ka markii aad daraad sheegaynay problemska walba wuxuu leeyahay root ama xidid challenge-ga waxa keenay marka analyze ku sameynay waxaa jirta technology-dii oo nagu cusub security-ga waxaa kaloo jira dadka inaysan ka warhayn yacni inay jirto technologiyad cusub oo bedeli karta security-gaas xalin karta iyo markii aan aware noqdeen kadib waxay iska dhaadhiceen ma jirto alternative ka duwan in la isticmaalo ID card ma ahane. Next. Sidoo kale challenge mapping-ka waxaa u kala qaadnaa labo external iyo internal. Internal challenge mapping-ka waxaa ku soo koobnay boardkan sida aan u xalin karno iyo challenge-ga caqabada jirta. Next. List of products ama service-ka bixinaan anaga waxaa waaye maadaama ICT nahay service anaga hadda waxaa kusoo koobnay hal xabo waxaan rabnaa inaan halkan xabo gaarsiino potentialkiisa meeshii ugu dambeysa markuu gaaro kadib waxaan rabnaa inaan hore u soco. Next. Basoonaheena waxaa anaga target garaysanaynaa qof maxaa ku dhahaa head oo jaamacad ah ama director ka ah organization. Goaliska qofkaas uu leeyahay waxaa waaye inuu ka dhigo xaruntiisa secure inuu ka dhigo challenge-ga ka haysta waxaa ka mid ah waxaa ilaaway ID card-kayga in la dhaho ama waxaa jira inuu dhaho maxaan ku dhahay ID card haddii mar la sameeyo edit aan lagu sameyn karin oo ID card qofka ama inuu sawirkaas foolxumada badan uu ku haysto magaca qaldan uu ku haysto. Sidoo kale waxaan rabnaa elevator pitch-keena inta ugu muhiimsanaa ka taaban doonaa. Elevator pitch-keena waxaa waaye ID card-ka waa piece of plastic oo markaas lasoo ilaawi karo dhumi karo why not use VMAS. Ka soco next. Why iyo how iyo what waxaa kusoo koobnay waxaan rabnaa revolution inaan ku sameyno ID card-ka waxaa qaabka ugu sameynayna waxaa waaye inaan horumarino software kaasoo well designed ah oo editable ah. What waxaa waaye waxaan rabnaa inaan sameyno mobile application oo aan uga saarayno meesha ID card-kayga waa soo ilaabay ama waa soo lumay ama ID card weli ma lihi. Hore u soco. Beri iyo during iyo post dadku waxay naga filayaan anaga waxaan rabnaa expectation-ka ay naga filayaan waa secure ID effortless attendance checker iyo quick service quality service intayna la joogaan affordable price waxay nagu haysan doonaan maxaa ku dhahaa intay naga filayeen oo secure ID-ga ah iyo quick invitation 24/7 support ay naga haystaan. Haddii uu qofka naga tago service-ka anaga aan bixinayna waa monthly waa wax socon doono ma tegi doonto inuu naga tago hadduu naga tagana 1 month subscription aan siin doonaa oo free ah. Hore u soco next. anaga waxaa isticmaali doonaa social media on food iyo commercial promotion sidoo kale waxaa target garaysanayna waa NGO-yada iyo secretary-yada xarumahaas waxaa isticmaali doonaa tool la yiraahdo Geekboard oo aan u sameyn doono metrics-keena ku xisaabin doono. Hore u soco. waxaa first year budget-ka waxaa u kala qaadnaa 6 bilood oo ah maxaa ku dhahaa fundraising-keeni anaga aan raadinaynay oo 5,700 ah. Hoos u soco. iyo 6 bilood dambo markii la isku wada daro 8,000 iyo 900. Hore u soco. maxaa ku dhahaa forecasting-keena bilaa u xisaabinay December waxaan rabnaa inaan gaarno $2,500 annagoo customer-kana ku xirnaa doonto. Hore u soco. Summary 4 qodob waxaan rabnaa inaan dhisno strength-geena markaasna aan soo yareeno weaknesses-keena oo markaasna aan invest ku sameyno opportunities-ka aan haysano. sidoo kale waxaan rabnaa inaan monitor ku sameyno threats-ka ku imaan kara business-keena. taasna waxaa lahaa SWOT. aad waa mahadsantihiin.
customer service componentska beri serviceka iyo during serviceka wax yar haddaa kor ka xasuusanaysa nagu Okay. celi pre-serviceka qofka intuusan noo imaanin waxay expectationka uu naga filayo maxaa waaye in asaga waxaan u malaynayaa expectation ka soko waxa weeye beri service adigu maxaa qabanaysaa aniga maxaa way qabanaa isku jiraan waa expectation iyo adigu waxaa qabanaysid ilaa macmiilba ma hayside okay aniga waxaa xooga saaraa persoonahan waxaa ku sheegnay iyo canvaskii marketingka inaan 3 type of marketing qabanayno midka koowaad oo social media content marketing ah midka labaad oo ah on food ama anaga u tagayno customerskeena potential customerkeena maxaa yeelay waxaa la lahaa if you trying to sell to anyone you're not selling to anyone potential customerkeena keliya aadayna marka waa inaad kusoo xustaa beri serviceka taas waa inaad tirahdaa marketingka beri shaqada intaanan gelinba oo qofka uusan ii imaan beri service waxaa noqonaya inaan jaamacadihii tago inaan marketing sameeyo baa ku noqonaysa post serviceka haddaan kaala hadlo waxaa tiri 1 month oo premium subscription aan siinaya haddii jan ratekaaga ama dadka kaa tegaya ay yihiin tire aad u badan oon aan subscribe-ka kaa qaadanaya oo kulligood hal bilo bilaasha siisay taas mayse khasaare kugu ahayn servicekaygu ma aha yani wax oo ani costi kale igu baxaya maaha costiga hal mar haddii qofkaan aa siiyo ma lacagtaa helaysa miyaysan minus gelinayn may kun qof oo kalaa kaa tagtay oo kugu xisaabtamaysay kunkii waxaa siisay hal bilo subscription bilaasha halkaa bil miyaysan kunkaa qof adeegaaga isticmaalaya liisku ahayn maya maxaa yeelay qofka markuu sign up soo sameeyo wuxuu bixiyay lacagtii hostingkii uu baxshay hostingkan mar walba waa yeer sanad waay qofka hadduu baxo marka hostingka lacagtiisa hore u bixiyay ani minus kale iguma jiro subscriptionkii bilaha ahaa so subscription bilaha kama rabtid faa'iido dheeraada ahayd ani waxaa igu baxaya wuxuu ahaa $95 oo hostingkaas oo ah oo macnaha serviceka sarfaha aan saaray daatada keliya igu baxaya $95 waa ardada oo dhan iyo jaamacadda hal mar ka qaadaysaa $95 soo ma hal mar markaa ka qaado hostingkaa sameynaa sax inta number ay yihiin ay ku xirnaan doontaa subscriptionka tusaale ahaan $500 wixii ka yar $30 dhiibayaan $500 ilaa 1,000 waxay dhiibayaan $50 wixii ka badanna 0.05 aa loogu dhufanaa per student wixii kun ka badan marka revenue iga soo galaya yes wuu yaraanaa laakiin servicekaas premiumka ani macnaha costi iguma galaayo servicekaas costi iguma galaayo taa bedelkeeda waxaan kugula talin lahaa marka waa tala bixin su-aal maaha iyada jaamacadda laftigeeda inaad xoogaa mas-uuliyadda saartid maadaama wixii application tahay la isticmaalayo qofku soo gelayo barcode lagu akhrinayo marka inaadan wax premiuma aadan bixin laakiin jaamacadda iyo marketingkaaga xoojisaa jaamacadda laftigeedana adigu waa kala xisaabtantaa saasaa ku fiican oo business ahaan cafwan cabdixamiid waa mahadsan tahay aniga hal su-aal baa igu soo dhacaysa waxay tahay saad sheegtay waxaad xoogga saari doontaan jaamacadaha iyo waxbarashada jaamacadaha saan ognahay maaha jaamacado publica intooda badan waa business waxay qaadaan wax la yidhaha other charges oo ay faa'iido ku qabaan oo uu ku dhex jiro kaarhku marka maxaa faa'iido ah ugu jira in adiga kaaga samaystaan oo bedela ilaa nimanku lacag bay qaataan bil kasta semester kasta ama mar kasta arday qabanayaan lacag bay meesha ka helaan kaadh laga yaabo inuu $1 ugu joogay $5 ka siiyaan $4 faa'iida tusaale ahaan bay ka helaan hal mar waxaa ku celisaa slide-ka koowaad oo problem tree-ga hal mar ku celi kor u soco kor u soco kor u soco kor problem tree-ga kor u soco weli kor u soco yes qodobka shanaad boldi xataa waxaa saarnay inay jaamacadaha ku qabaan income acknowledge waa factors waa noo diiwaan gashan tahay inay faa'iido ku qabaan laakiin faa'iida ay ku qabaan hadda waxaa waaye inay $10 ardayga saaraan $10 ayagoo ku bixinaya $5 markaasna ay ka faa'iidaan $5 hadda waxay ardayga saari karaan $5 ayagoo ku bixinaya $2 marka ilaa hadda faa'iiday ku qabaan maya hadda waxay sameeyaanba kaadhkii kii daabacaya baa meesha u yaalla caagadii unbuu soo gadanayaa waxaa laga yaabaa inay 0.something ku joogto hata $1 ma dhamma ilaa okay marka mar walba hadduu 10 siiyo 9 buuba ka faa'iidaa okay marka maxaad u celinaysaa baahida arabno inaan xalino inta jaamacad ama inta organization ay systemka haystaan waxaa ka badan inta aanan haysanin oo bannaan kasoo daawacta qarashka uga baxayay iyo qarashka u haraya qarashka u haraya haddaba way ka qaadi karaan ardayga maadaama oo loo diiwaangelinayo software laga diiwaangelinayo diiwaangelinkeen waa la dhihi karaa oo ayadoo ID card-kan oo virtual yahay
laba faa'iida ku jirto jaamacadda waxay helaysaa income-ka daa ka helaysay oo faa'iidada ahaa ay ardaygiina wuxuu ka faa'iidaa lacagta daa uu bixinayay ka yara oo ku bixinaa ID card ardaygan waa faa'iido jaamacaddina waa faa'iido hadda waxay ku helaysaa tusaalahaan $10 ka qaaday waxay ka faa'iidaysay lacag $6 $5 ka faa'iidaysay hadda waxay ka qaadi kartaa $5 ama $6 ka qaadi kartaa ayadoo ku bixinayso 0.05 cabdi xamiid waa mahadsan tahay ID cardka waa aqoonsi waana virtual saad sheegtay waa maxaa mafsuul buu saari doonaa ma indhaha akhriyaya ila sawirkii ma noqonaya waxaan rajaynayaa inaan boardtab ku tuso laba wax ardayga markuu ID cardka laga diiwaangeliyo jaamacadda waxay haystaa system computerkeeda waxaa la siinaa softwarekaas waxay ku diiwaangelinayaan ardayga magaciisa emailkiisa glassku dhigto waxay diiwaangelinayaan sawirkiisa markay sawirkiisa diiwaangeliyaan maxaa lagu aqoonsanayaa baan ka wada laba wax ardayga wuxuu kusoo galaa kooda hore telefonkiisa markuu la soo baxo ID cardkiisa iyo password markuu kusoo galo waxaa usoo baxay information cardka ku qoran oo kale sawirkii magacii galaaskii kor waxaa yaalo baharkii yaalo QR code wuxuu ku dhufanaa QR code generate garay waxaa loo generate gari doonaa QR codekaas laba wiya loo qaadaa waxaa jiro first need iyo second need first need dadka qabo tusaalahaan waxaa jiro barnaamij 3 maalin 4 maalin soconaya looma rakibi karo maxaa ku dhaca QR code scanner looma rakibi karo darbiga staan oo kale laguma dhejin karo 3 maalin loo socon rabaa kaasoo kale waxaa u sameeyay isla appkii waxaa u qaadnay range oo staffka ah ay kusoo galayaan ID card markay kusoo galaan automatically waxay qaadayaan scan telefonka qofka waardiyaha albaabka taagan telefonkiisa wuxuu ku qaadaa scankaas uu ku qaadaa waa special scan walba ma aha tusaalahaan iPhone-adan kale scan ay leeyihiin laakiin markay qaadaan daatada usoo baxaysa secure ma aha haddii daatada qofka kale usoo bixaysay staffka diiwaan gashanaya usoo bixaysa haday usoo baxdo secure ma aha so scankaas wuxuu ku qaadaa marka QR codeka ardayga haddii meesha ay tahay meel direct u qaadatay softwareka tusaalahaan jaamacad oo kale oo sanadka oo dhan lagu imaanayo albaabka waxaa loogu dhijiraa QR code scanner productigina waa dalabna oo QR code scannerka ah marka dhaatada waxay ku dhex jirtaa QR code ku jirtaa marka ardayga hadduu wax kale QR code kaliisto la scan gareeyo macluumaadkaas soo baxaa ha waxaa jiray su'aalaad badan is weydiin problemska ee qabsan karo waxaa jiray internetka lagu reliable maaha yani ardaydana mar walba sim card internet ma wataan maxaa xal u noqon karo waxay screenshot ka qaadan karaan QR codekooda QR codekaas hadday haystaan sawirada ugu jiraa waxay saaran karaan scanka kadibna waxaa soo baxaya marka scankaas waxa loo qaadaya waxaa waaye laba way hadda scan markii la qaado waxaa la dhihi karaa deed cagaar ah waa qof access granted ah ama mid blue ah oo maxana guduud ah laakiin taas waxaa dhici karta qof ani waxaa aqaanaa qof kale oo jaamacadan dhigto scanka hadduu isoo diro uu ku qaadi karo taas waxaa uga hortagnay waxaa monitor siinaynaa qofka waardiyaha meesha lagu dhijinaya ama hadduu teleefon yahay waxaa soo baxa markuu scanka qaado waxaa soo boodaya qofkan gabadhan sawirkeeda magaceeda wixii soo boodaya haddii ayada tahay waa ujeedaa marka hadduu qof kale yahay oo QR code soo koobiyeysta ama WhatsApp loogu diray ma ku soo gali karo su-aashada ugu dambaysa ID cardada waxay leeyihiin lambaro lambar ma yeelan doonaa of course ha ID cardka qofka inuu soo galo wuxuu kusoo gali doonaa ID numberkiisa ID numberka waxaa jira jaamacadaha qaar waxaa jiro barnaamij ay isticmaalaan oo ardayga natiijadiisa iyo waxaas uu ku ogaado waxaa qaarkood ku gala marka ID cardka iyo password ID cardka talafta kugu qoran aa gelinaysaa 7 number ama 6 number wixii aa gelinay numberku yeelan doonaa waxaana lagu kala saari doonaa ardaygan koowaad ardaygan labaad wax lagu kala saari doonaa waa ID aad u mahadsan tahay laba su'aal aan rabaa cabdixamiid inaan ku weydiiyo su-aashkood waxaa waaye systemkiina dependent miya mise independent macnaha dadka markaa u samaysiin adiga inay ku tiirsanaadaan mar walba muhiim miya mise waxaa waaye one time aan u sameynaynaa ayaga kadib wixii ka dambeeya sameysanayaan ilaa sanadka ka dhammaanayo ma mahadsan tahay su-aashaas inta kale may raacinaya su-aasha kale waardiyaha ma u baahan yahay training mise ma u baahno haddii uu training u baahan yahay gooni waaye subscription haddaa sheegtay oo bil walba aa qaadanaysiin subscriptionkaas يعني maxaa ku qaban rabtiin abka haddaad develop garayseen systemka aad dadkan u samayseen ayaga maadaama ay isticmaalayaan waardiyihii jaamacadda uu joogo subscriptionkiina maxaa ku qaadanayseen macnaha laba way jirto waxaa anaga baxnay stageka koowaad ama wareegga koowaad waxaa soo sheegnay 3 way inaan revenue ku sameynayno revenue waxaa waaye one time sell qofka inuu dhaho hal mar laga gado wixii dhan anaa dependent noqonahay database asaga lama caamilahay asaga saarda haddii problem uu imaado anaga waa u xalin doona maintenance lacag gooni may fi yar maintenance ka qaadi doona oo tagi doona oo xalin doona waxaan siinaynaa laakiin markaas option ah inuu qofka toos u gadan karo database-kiisa saaran karo already in fact hadda waxaa deal la galnay one customer
halkaas customer wuxuu kula heshiin inuu asaga qaadanayo databasekiisa isaga saaranayo waxaa jira marka qof aanan private yani organization hadda yar oo raba hadda inuu arday asaas ama wayr yahay ama database asaga ma haysto waa loo haynaa qofka subscription laga qaadayo waa qofkaas waxaa kaloo jiro pay as you go subscriptionkiisa hoos galaysaa labada 500 wixii ka yar waa subscription waa fixed price waaye $30 ah 1000 ilaa 500 waa fixed price oo $50 ah wixii ka badan wuxuu noqonaa pay as you go يعني 1200 1300 isku lacag laga qaadayo waxa loogu dhufanaa per card 0.05 markaas waxay keenaysaa kunkii waxay keenay $50 wixii ka badanna markaas way ku darsami doonaan qofka anaga u haynayna marka su'aashaas ka jawaabo waxay noqonaysaa qofka anaga u haynayna subscription-ka waay qofkii hal mar one time payment sameynaya hal mar oo gadanaya wixii dhahayna subscription laga maro wuu qaadanaya baalkiisa waa xarun gaar loo leeyahay taasoo u gaara dadka waaweyn iyo caruurta yaryar xaruntan waxay dabooli doontaa baahiyihii loo qabay ayay u qabeen dadka waaweyn iyo dadka yaryar inay helaan dhakhtar ilkood oo u gaara kaasi oo kaafinaya baahiyihii ay qabeen bismillaah assalaamu calaykum rabadaan kariim magacaygu waa cabdiraxmaan colhaye shirkaddan ku tartamaya waa colhaye dental clinic colhaye dental clinic waa xarun ilkood oo gaar loo leeyahay taasi oo u khaasa caruurta iyo dadka waaweyn challenge-gaan aragnay challenge baabkayga waxaa waaye root cause-ka waxaa weeyaan sugud dheer ka waran hooyada ama aabbaha oo da-weyn oo dhakhtar la geeyey oo isagoo xanuun ku taagan yahay haddana muddo badan sugaayay ka waran ilmaha caruurtaada yar oo meelaha ka cabsada dhakhaatiirta oo dhakhtar la geeyey oo ka cabsanaya see loogu adeegi lahaa waxyaabahan anagu maalin kasta aragno waxaa ka mid a in caruurtu ay meeshaba ka baqayaan oo ooninayaan dadka waaweynna ay u yeelan waayaan samir meesha ay ku joogaan yeelan waayaan oo meel kale maal baragtaaysa tagaan oo waxyaabo kale oo caqabado kale kala kulmaan waxyaabahan samayn anagu adeegaan bixino waxa weeyaan surgery prostodontiga daaweynta ilkaha qurxinta buuxinta daweynta iyo toosinta ilkaha adeegyadan qaban waa kuwan weeyaan user personalkeega intan dadka waan kala wada simanahay bal haddaba how baan halkan eegaynaa qaybaha muhiimka si waqtiga inooga dhicin qofka seen ra'yideedan uga dhaadhicinaya waxaan uga dhaadhicinayaa anoo tusiya qofka wixii aan qabtay iyo caruuro aan u shaqaynay anagoo tusina in xarunta qalabka yaala iyo dhakhaatiirta ka howlgalaysa qofka la tusiyo oo la taabsiiyo watayada waxa weeyaan in qofku loo fidiyo adeeg guulaysta iyo isagoo qoslaya oo faraxsan inuu naga tago caqabadaha adeegaan qabana uu kala kulmi karo waxaa ka mid a in taladan siina uu qaadanba waayo qofku oo uu kala tago meeshii taladii qofku dhakhtarku siiyey uu sideedoo isticmaali waayey ama bukaha oo ka baqaba alaabta markaan u shaqaynaynayba aan iila shaqaynayn cooperationkii dhakhtarka iyo bukaanka oo marka horeba dhiitayba taa macsuul xun beedna soo saaraysa haddaba waxaan kaga hortagi karnaa inaan qofka cabsida ka biino iyo in la xasuusiyo qofka mar walba wixii aan u qabanaynin real quitiskeegu waxa weeyaan daryeel hadda bixi hadhow tayada liidata iyo qiimaha oo qaaliya waxay adeegaya ka dhigi kartaa wax buura hawgeegu waa kan horta adeegaan qabanayna waxa weeyaan daaweynta iyo qurxinta ilkaha weeyaan iyo waxyaabaan qabanaynaa waayaan u qabanayna waxa weeyaan waxaan u samaynaynaa inaan caawino dadka u nugul cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha sidoo kalena aan horumarino oon tayayno caafimaadka afka iyo ilkaha dalka hawduna waxa weeyaan inaan horumarno caafimaadka quruxda ilkaha macmiilka anagoo siinayna adeeg fiican oo tayo leh horta marka koowaad qofka waxaan kusoo jiidanaynaa anagu inaan xaruntu bixinayso adeeg ay raali gelinayso macallimiinta
macmiilka habka lacagta loo bixinayo fudud iyo waqti yar oo qofka loogu qabanayo intuu nala joogo adeega bukaanka waxaan ula tixgelinaynaa oon ixtiraaminaa inuu muhiimadda isagu leeyahay siinaynaa adeeg fiican oo qabanaynaa hadhow markuu naga tago macmiilka abaalmarin baan siinaynaa qofka haddaan adeegyo fara badan u qabanay mid bilaash oo kalaan siinaynaa carruurta loo shaqeeyana hadiyado yaryar oo lagu farxo ayaan siinaynaa oo ay ku ciyaaraan inaan qofka ixtiraamno iyo inaan u naxariisano iyo in qofka waxaan u qabanay u sheegno waxyaabaha ka dhalan kara iyo suu ilaashan lahaa negas taatikada aanu isticmaalno waxa weyn in aan bukaanka la weydiin lacag oo loo qabto horta baahiduu yimiday laga caawiyo faa'iido waxyaabaan u samayno waxa weyn objectivekan ka leenahay marketingka waxa weeyaan wacyigelintu inay wacyigelin noqoto bulshada wacyigelin noqoto iyo in macmiil cusub nagu soo noqdo waxyaabaan ku garan karno waxa weyn koriinka iibka oo kordha iyo dadka nagu soo xidhmaya meherada oo iyaguna isbiirsado soo kordha mishariskan isticmaalna waxay noqonaysaa koriinku boqolkiiba 10 koritaanka iibku inuu ku dhaco boqolkiiba 20 inuu koritaanka macmiilka ku dhaco negas kharashaadka anagu aan isticmaalno totalka dhan ee nagu bixi doono waxa weeyaan 46,340 waxyaabaha loo kala waxeeyna halkaa bay ka muuqdaan negas feerasiyarkeega horta anaga adeega inaan waxyaabaha inaan shaqeyno lacagta inaan shaqeynaan rabno celceliska wuxuu noqonayaa 4 kun buu noqonayaa markaaynu material cost-ka wixii billaha ahaa ee bil walba baxayay aynu qiimeyno salarygii bixino office-kii aan hagaajinay markii koowaad aan waxayno utilities-kii aan bixino miskilaan use-kii aan samayno alaabta iyada waxaan isticmaalnaa qalab baan isticmaalnaa soo maaha qalabkii lacag baa naga gashay qiimo dhaca ku yimiday sanadkaasi aanu qiimeyno lacagta sanadka koowaad nagu baxaysa waxay noqonaysaa 45,340 dollar marka laga kala jaro wixii noo soo xarooday iyo wixii nagu baxay waxaan faa'iidi doonaa 6,660 dollar baa faa'iido noo noqon doonta negas على dental clinic waxa xarun caafimaad u adeegi doonta dadka u nugul cudurrada ku dhaca afka ilka hamiga fog waa inaynu sameeyno xarun ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan halku dhigeeguna waxa weeyaan daryeel hadda bixi hadhow soo dhow saaxiib su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye customer service componentska oo pre-service iyo during service iyo post serviceka slaidka dib u soo celi slaidkaasin weli noqo mar kale bes waa kan pre-serviceka in isku dhex yaacsan yihiin baa moodaa markaal mar sharaxaya ayaan kuu sharaxo marka koowaad pre-serviceka xaruntu waxay xoogga saaraysaa raaligelinta macmiilka bulshada waxaan u sheegaynaa macmiilkii maba aad helin be see raaligelisaan yacni waa ilanooma iman soo ma aha yacni marketingkaan u marinaynaa raaligelintu waa gudaha miyaa oo shaqada marka ay gashin intuu qof kuu shaqeeyo maya qofka intuu naga maqan yahay waxaa jira dhakhaatiir fara badan oo dadka markuu u yimaado saalada uun saara oo wax dana ka lahaynba qofka laakiin anaga waxaan u sheegay markuu u yimid soo maaha oo during service يعني waxaan kuu sheegayaa dhakhaatiirta intay dadka tagaan macmiilkii kama helo comfortable waa in saaladan bala saara oo loo shaqeeyo laakiin media waxaan marinaynaa in macmiilku isagu tixgelinta leeyahay oo raaligelin uu naga helayo si uu noo yimaado marketingkii weey post serviceka haddaba tag post servicekeygii soo ma aha macmiilka uun abaal marinaynaa abaalmarinta waxaa u qabanaysaa marka adeega u dhammaysido uu sii baxayo waa during service markuu gurigiisa tago nina ele ka saartay intaa wacdi leedahay maanta waa ku abaal marinaya saas maaha saama tusaale ahaan carruur baan u shaqaynaa soo maaha ya carruurta marka haddaba waan samaynaa markuu ku yimaado dhiil baa lasii galaysa waxaa odhanaysaa haddii aad si fiican lagugu shaqeeyo oo ooyi weydo waa lagu abaal marinaya waa saxsan tahay markuu loo shaqeeyo hadduu ilmihii yaraa fiicnaado ama aba xumaadee markaa u shaqayso hadiyad yar baad siinaysaa ya waa during service laakiin hadiyadaas adeegii la socotaa sax post service ma aha waa during service qodobka waxaan u fahmay yacni qofku wuxuu kugu xasuusan doono ilmihii marka haddii mar hadiyad la siiyey waa memorability ya waa sax markuu qofku uu ku siiyey hadiyadu ku siiyey wuxuu odhanayaa dhakhtarkii hebel ahaa ee waxaa fiican siinaysay kaa anaa si fiican lagu soo shaqeynaya hadiyaddeedii noo soo qaadanaya xasuus hadiyad baa ka dhigaysaa marka xasuus hadiyad in lagu soo xasuustaan saan u fahman soo qoray marka waa mahadsanta aad baa mahadsanta waa mahadsanta
بسم الله مستر علهاي وما سنتهاي أهلا. qarashka kaa geliya aad buu tiro badan dib u soo laabo 46 baad waan kuu sharaxaa soco weli soco mar kale ها واكن 46 waa sanadkii soo maaha ها sanadkii weyn okay isla sanadkii markuu dhamaadana 45 baad hadana ba expensive noqonaysa horta halka intan waa wixii naga geliyay salary-gii soo maaha office-kii la hagaajinayay ilaan waa la bilaabaya soo maaha kharashaadkii geliyay weyn utilities-ku waxay iskugu jirayaan laydhkii weeyaan kiradii weeyaan biyihii weeyaan miirigii weeyaan iyo cashuurtii kiradu waa imisa kuradii 6,000 bay noqonaysaa bishii waa imisa waa $500 okay laydhkii baa soo 13,500 maxaa soo baxaya utilities ko dhan baa isku jira waxa ku jira waa laydhkii biyihii kiradii cashuurtii sanadka ahayd waxa soo dhan baa isku iimiyay miirigii waxa soo dhan baa isku wada jira lacagta maxaa haystaan hadda 46,000 horta kiradu waa dhamaystiran tahay iyada waa la qadimay dhismaha la sugaa maxaa soo haray cashuurta sooma cashuurta iyadna waa la bixinaa way xisaabsan tahay dee leydhka iyo biyaha wax la isticmaali karo ma garan kara dee hadda laakiin waxaan uga jeedaa lacagta way badan tahay maxaad haystaa lacagta badankeyga anagu waan haysanaa lacagta badankeyga anagu waan haysanaa tusaale ahaan waxa badinaya mishaaraadkaa badinaya mishaaraadka dhakhaatiirteedii baa ku jirta aanu isticmaalaynay haddii meesha in isbixin weydaan aragno anagu mishaarkii iska joojinaynaa ya lacagta ugu badan mishaarka dhakhtarkaa qaadanaya ya marka anaga tadhibta nagu hayn kartaa waxa weeyaan labadeeda dhakhtar iyo qofka kale anesthesiada 12,000 baa nagu baxaysa min $1,000 bishi ya min maymay min 500 baan isku xisaabsanaysaa min 500 bay noqonaysaa qof dhakhtaro 500 qaadanaya aad bay hooseysaa way taa xisaabta markaan ka tagno waxaa adeegyada qabanaysa waxaa ka mid ah adeeggan imika dadku aadka u isticmaalaan ilkaha la xidho sax ilmo yarna waad u shaqaynaysaan xilliga ilkaha la xidho ugu wanaagsan ee ilkaha la toosiya waa xilligee marka horta ilkaha qof oo 40 jira ku imanaya ama dhowr iyo 30 jira oo ku oranaya ilkaha xidh laakiin waxaa kaga habboon ilmaha ka yar 8 ilaa 16 inta u dhaxaysa waayo waxa la dhiil garaynaya marka ilkaha la xidhayaay lafta la dhiil garaynaya laftuna xilliga qofku 18 jir uu ka hooseeyo waa xilliga koriinka ku jirto ya marka dhiil garaynta alla la dhiil garaynayo in result fiican soo baxo oo qofkan uu ilkiisa fiican toosaan da'daaba ka qayb qaadanaysa shaqadaas kaliya marka haddaad isku koobi lahaydeen suuq fiican ka mid samayseen dad market badan u sameysaan tiraadaan ilkaha hadhow inta xidhan lahaydeen hadda la xidho kuma fahmin macnaha ilkaha in la xidho oo kaliya adeegyada bixisaan hadda ka kaliya xoogga saartaan soo lacag fiican lagama samayn karo intan aad hadda soo qorto ka badan ma adeegyadan soo qoray laga maarmo xarun caafimaad oo carruurtiya Soomaa adeegyada kale ma kala wada maarmaan ya isla soconaya ha waxa iyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu yar bay ka mid tahay waayo qofku waxa xilligan ilmaha yar uu korayo isbedel baa ku dhacaya ilmihii yaraayo 20 ilkood lahaa ayaa waxa u soo bixi doona 32 ilkood marka isbedel baa inta ka dhacaya isbedelka dhacayay in ilka kaliya la xidho faa'iido kuma jirto ya waayo ilkii waxaba ka muhiimsan tan prostodontic aan leenahay tusaale ahaan ilmihii wuxuu kaga dhacay eligii suus baa ka dhameeyay 4 jir buu kaga dhacay eligiina wuxuu soo baxayaa 6 jir buu soo baxayaa labadaas sano ee dhan ilmihii space-kaasi bannaan waxa dhici karta inay ilkii kale ku soo durqaan oo hadhow ilmihii ama langadaxa ka soo baxo ama uu la kab noqdo ta kale kaga muhiimsan marka carruurtu maadaama yihiin lixda adeeg in meel la iskugu keeno ay meel kale ka wada helaan aad bay muhiim u tahay waa mahadsantahay دكتور هذا وما سنتهاي وحارب إنك كويديو ما إذا كجرا قف أو دنتال كسب سبيشالت أو دنك عرورتك سو دياري مادام على وقف كتين أنا بس جنرال دنتيست عادي هاتين أو أنا مهمة وحن صارينا هذا مشاركة هل كان أنا قوي مني بهالك هدي مشاركة أسي ماشي إني صو صارتاي أكتهاي تختار وحن كان إنها كتخصصي مستقبلك هذا ضم بهدي أنا أرجنا إني صو صاريسو
marka anagu ilaa anaga bilaabina soo ma maya adika bilaabaya waxaan noo sheegtay saddexaan nahay laba qof oo dentist labadeedu general dentist baan nahay waan qaban karnaa hawshii okay marka maadaama adika ay qaban kartiin xarumaha kale oo dentistayaasha kale ahne soo ayagana ma qaban karaan caruurtaas inay u adeegaan ha way qaban karaan waxay ku dooranayaan marka waxay nagu dooranayaan waxyaabaha nagu dooranayaan waxaa ka mid ah in meel gooniya loo helay saan hadda soo sheegin oo kale ilmihii yaraa goob uu kaga dhakhtar ahaana markuu tago uu cabsanaya laakiin marka la keeno goob gooniya oo game yar oo ku ciyaaro ay u taalo shaydaamo yar waxyaabo yar buube yar ku sawiran yihiin alaabihii yaraayo dhan wax ilmaha ka qoslinaya ay tahay waa la keenaya marka magacaygu waa cabdinuur axmed cabdinuur magaca businesskayga ama shirkadayga waa astur sea shower mustaqbalka dhow insha allahu tacaala markaa businesskan hirgelin waxaan rajaynaynaa inay shirkaddan wax badan ka beddesho xeebaha guud ahaan waddanka soomaaliya ugu horreyn oo dalxiisayaasha meeshaas yimaada inay heli doonaan dhammaan adeegyadii ka qayb qaadan lahaa qanacsanaantooda si ay uga soo tagaan xeebahaas qof walba isagoo qanacsan hadduu ilaaha yidhaah magacayga waa shamse cabdullaahi baafe waxaan wadanaa shirkadda astur sea shower waxaan ku nahay ilaa iyo 3 qofood oo dhalinyaro ah haddii adeega aan wax yar oo horudhaca idinka siiyo astur sea shower waa adeeg ama shirkad ku cusub waddankeena waxayna ka shaqeyn doontaa goobaha dalxiiska taasoo baahi badan looga baahan yahay in dadku meel ay ku dheer bedeshaan marka xiliyada oo kaleeto waxaa laga yaabaa inaad tasawir usoo baxday inaad dabaalatid aa u baahan tahay laakiin meel aad dharka aad ku bedelata aadan haysa hore u soco okay waa maxay dhibka jira oo aan aragno waxay tahay horta ma jiraan meelo gaar u ah in dumarka ay ku dheer bedeshaan xiliyada dabaasha waxaa laga yaabaa dad badan oo dumar ah oo jecel maxaa lahaa isheeg dabaasha in aynan helin meel u fududeynaysa marka ay shaqada ka baxaan ama ay xaafadda ka imaadaan oo kaleeto meel ay ku dheer bedeshaan taana ay sababayso inay dabaasha ay ka caajisaan dhibka waxaa keenay baraarugu la-aan dhanka bulshada ah maadaama dhibkii uu jiro in aan muddo badan aan la xalin aniga 2015 ilaa hadda waxaan jeclaa dabaasha laakiin marka aan rabo inaan aado badda oo kaleeto liido waxaan ka fikirayaa dharka u dhiibanaysaa dharka hadduu kaalmo ka waran naagta dharka u dhiibanaysid xitaa 4 jilmadood haystaa xitaa haddaa mobilka u dhiibatid arma kaalma that's why marka badan aan dabaasha uga caajiso dhibka marka waxaa ka dhashay qanac la-aan sida tusaale ahaan oo kaleeto inaan ku qancin oo kaleeto markaan inta badda iska tago dadka dabaalanaya aan arko aniga aan dabaashii waxyaabo badan oo ii fududeynaya aysan jirinin darteed inaan ku qanci waayo taasaa waxay keenaysaa dhibkii iyo waxyaabaha ka dhashay intaasaan uga baxaynaa challenge maaminka hore u soco adeegyada aan rabno inaan qabano hadduu alla idmo asturna aan ugu talagalno inay gaar la-aad waxay tahay in horta dumarka helaan meelo gaar u ah raggoo kaleetona sidoo kaleeto nin inta badda ka soo baxo caag inuu banaanka inta la istaaga dabaasho xoogaa aaday foolxumo ay u tahay rag iyo dumarba marka magaca sidaa ka aragtaanba astur aa ugu bixinay in adiga oo dhammaystiran asturan inaad hawshaada soo fursan kartid sidoo kaleeto waxaa ugu talagalnay agabka dabaasha wuxuu ugu jiraa nuucyo badan nuucyo xitaa caruurta loogu talagalay laakiin anaga hal jaakadoo keliya isticmaalnaa marka ina agabkii oo kaleeto aan soo kordhino sidoo kaleeto qaladaadka inta badan ayadana dhac waxaa ka mid ah ama bulshada dhibka ka haysto in maxaa la dhahaa isheeg aysan jirinin dadka keedka u ah alaabta haynaa inay yihiin dad damaanad leh maalin dhawed waxaa dhacda maamo alaab loo dhiibtay inay iskaga baxday saaxiibadeed markii la weydiiyena shalay meesha usoo birtaa leh marka dadkaas kale alaabtooda meelay u raacdaan ma leh anaga ayaa waa dadka u adeegayno dadka u adeegana waxa ay tahay dadka dalxiisa ee imaada goobaha xeebaha ah jinsiga rag iyo dumar dadka dabaasha jecel da-doodana ilaa ay 10 sano wixii ka yar wixii ka weyn maadaama dadka 10 sano wixii ka yar banaanka ay ku qabaysan karaan ama ay ku dabaalan karaan si caadi ah aysan u baahnayn wax astur goone ay caruur iska yihiin
ganacsigeenu waa sii shaawar dalxiisayaasha gooni u ah ujeedooyinka aan ka leenahay ujeedooyinka aan ka leenahay waxaa waaye horta in baahidaas jirta aan daboolno annagana aan faa'iido aan ka helno waddada aan u maraynana waxay tahay in aan maxaa la dhahay sheeg qarashaadka aan helno kadibna aan fududeyno hore u soco waxyaabaha kasta markeena aan rabno inaan ku xegsano ama aynugu xasuustaan waxaa ka mid ah inaan u diyaarino goobo ay ku qancaan si fudud inaan adeega ugu qabanno oo aan teem u sameyno maxaa lahaay goobaha rag iyo dumarka ay kala gelayaan musqushooda aan nadiif aan uga dhigno inaan ka reebno lambaro si aan ula xiriirno in caruurta ay wataan aan ugu sameyno discount hore u soco marketing conference-ka u mareen waxay tahay in baraha bulshada aan marno aan u isticmaalno sidoo kaleeto tv-yaasha ay caruurta daawadaan oo kaleeto iyo bulshada ku xiran yihiin sida astaan oo kaleeto aan ka baahino iyo waddooyin badan inaan dad dhalinyaro ah aan siino maxaa lahaay fursad marketing ah hore u soco first year budgetka u baahana waxay tahay inaan horta hal container oo 2800 kusoo qiimeyno aan helno sidoo kale containerka markii aan keeno wuxuu u baahan yahay naqshadeen naqshadaasna waxaa nooga baxaysay injineerka sida aan research badan aan ku sameynay $900 $500 waxaa ugu talagalnay inaan bilaha ugu horeysto aan ganacsigeena aan maxaa lahaay aan ku dardargelino lacagta naga gelayso 4200 waa ilaahaan ka helayna maadaama 3 qof nahay hadduu al idmo waxaan rajeynaynaa saddexdeenana aan wada shaqeyno in aan u qaybsano 70% qarashaadka haddii kaleetona waxaan rajeynaynaa insha allah inaan maalgelin dhanka bangiyada aan raadino hore u soo first year forecasting aan sameynay maalmaha caadiga waxaan rajeynaynaa 40 qofood inaan u adeegno halkii qofoodna aan ku jaajigareeno $1 waxay noqonaysaa 22 maalin bishii waxay nooga soo xaroonaysaa $880 halka khamiista iyo jimcaha ay bulshadu aad u badan tahay aan ku jaajigar bulshada aad u badan tahay aan filanayn inay 100 halkaa ka sii wad dakhliga dakhliga soma khamiistii jimcaha waxaan rajeynaynaa inaan 100 macaamiil ay noo imaato maadaama khamiistii jimcaha dadku fasax yihiin xeebaha aad loo imaado macaamiisha imaan karta kun ku qiyaasna laakiin annaga inta noo imaan karto adeegan ku qanci karto ma aan ku fargareyn karna 100 macaamiil ay tahay waxaan ku qiyaasnay khamiistii jimcaha markii bishii loo xisaabay 8 maalin kaga soo aadayso khamiistii jimcaha waxaa nooga soo baxaysay 800 oo budget oo maxaa lahaay profit ah ku 680 saas ay ugu noqonaysaa 30 maalmood bisha ah dakhligana soo xaroon doona hadduu alla idmo qarashaadka nagaga baxay bishiina waxay noqon doontaa 300 oo ugu talagalnay shaqaale joogto ah oo labada gelin noo kala shaqeyn doona biyo maadaama dadkii ay qabeysanayaan biyaha waxay noo yihiin shidaalka nagaga muhiimsan yihiin qarashaad guud oo naga wada baxaya markii la isku daro 400 kaliya ay noqon doontaa wax kira iyo wax charge kaleeto oo lacag kaleeto ma geli doono hadduu alla idmo salary forecasting-ka aan saadaalno waxa waaye 200 iyo 80 markii 1680 laga jaro 400 waxaa soo baxaysa 280 lagu dhuftay 12 bilood 15360 oo dollar rajeynayna inaan sanadkii shaqeyno hadduu alla idmo shamso oo mahadsan tahay waqtiguna kole wayna hayaa su-aalahuna way tiro badan yihiin aan raba inaan ku weydiyo dhowr laakiin waa soo koobaya dadka qobaysanaya biyaha miyaad u xadidaysaan oo caagid baa ugu miisaysaan mise tuubaa meesha ku xidhaysaan hadda sida qorshaheenu yahay inaan u miisnaan rajeynayna okay waqti qofku haddaa biyaha u miisteen waqtiga uu ku jiraya looma xadiday isaga waa waqtiga waa loo xadidaa shaqaalaha uu leeyahay maadaama dadkii badan yihiin meeshii nagu yar tahay waqti oo asagana ku qanci kara 6 daqiiqa ugu talagalno qofkii okay su-aasha kale oo su-aal muhiim ah in la isweydiiyana ay tahay qofkan bad buu ka soo baxay waxaa laga yaabaa inuu masquul u baahan yahay idinkuna saa sheegteen waa qobays keliya soo maha meesha haddii biyo qabowna isku sii shubo kaada waa loo geli laakiin wax kale noo galeen okay waay su-aasha kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay idinka maxaa laydinku aamini karaa alaabta marka laydinku dhiibanayo ma mise charge ma ka qaadaysaan qofka ma la charge garayn hadduu mobile kuu dhiibanayo ama alaab muhiima kuu dhiibanayo waxay noola xisaabsantahay qofka mar hadduu qabaysanayo surfacekiisa dhan uu alaabtiisa iyo wixiisa dhan anaga u heynayna waxyaabana nagu aaminayo in ganacsigeena uu ka diiwaan gashan yahay gobolka banaadir dad laga haayo dukumentiyada ganacsiga loogu talagala okay su-aasha ugu dambeysa waxay tahay dumarka iyo ragga
saan ognahay inay meelo isu dhow ku qubaystaan diinteena islaamka xaaraan ay ku tahay ma intee la kala fogeynaysaan containerka hal container aan soo iibsanaysaan saan noo sheegtay okay hadda hal container naqshada oo noo diyaari waxay tahay albaabka ragga iyo albaabka dumarka inay kala duwan already marka laakiin still waa hal container waa la ismaqlayaa sama yeah hal container qabo way sama wili wax ismaqal waa ka ilaalinay waxa lagu xiray maxaa la packages wili hadda naqshadiisa socota waa ka fikirnay hay way Shams aada u mahadsan tahay salary inta ina kusoo dartid ahayd start up kaaga salary 300 dhada soo meehen aad weyn waxa ugu talagalnaa u jirnay 500 oo bish ugu horeysa inay naga baxdo arabna hadda salary aad weyn gadaal marka maxaa ugu soo dartay ya qaybta kale markii oo ganacsigana uu fadhiisto waxyaabaha aan bixin karno markaas kadib okay waxa rabnaa biyaha marka boosneer ma u sameynaysiin mise intee ka baxayaan maadaama xeebta aad dhigaysiin meel intee marayaan macnaha biyaha oo lagu qabaysto biyaha lagu qabaysto waxa ugu talagalnay hadeerta maadaama markaan qiimeynay keed badan oo aan sii heynaynin inaan raacsiino badda ya hadda qorshaha ugu horeeya meel u dhow macnaha containerka saa u qorsheenay inta saasa u qorsheenay laakiin waa kasii fikri doonaa daalin ها لكن صح واي سؤال مهم واي عبد وبوس ودي لكن بدي إنا يعني بتقب كذي نظافة ذي مكشقين وسين مسوق عيار وسين ما دام بدس يا هذا سان مسنا وقف كستو بدك قال مو ملينا أنا سوق هذا الآن صوب بركات بس بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور كحول النوبل ودعاء قول أدين رجينا إن شاء الله قول است taladii hore idin ma seegana marka kulligiin waa guulaysateen haddii fikradihiinu ay hirgalaan oo groupka aan ku wada midaysannahay aan ku aragno iyagoo shaqaynayo aad halkaa nooga dhexaysiisaan waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin ani mar walba waxaa dhahaa hal isku tashto inaa isku fahantiin waa xitaa dadka soo baxaan ani waxaa aaminsanahay team walba oo hadda noqonaya iddiis inay aad u qurux badan tahay mar walba nasiibka dadka kala caawinaya iyo qadarta waxaa rabaa inaa naftiina mar walba aa ku fahantiin brood ku ahaatiin isku sacbisiin iscazuntiin marka guulaa idii rajeynaa bismillahi raxmaan raxiim waa sidaa ay sheegeen walaalihii igu horreeyey haddaan ku yar noqdo habka aan wax kusoo kala saaranay runtii waxaan is leenahay qaab aad cadaaladda ugu dhoweeyaan qof waliba wuxuu sameynayaa qiimeyntiisa khaaska ah markuu qiimeyntiisa khaaskaa sameeyo ayaa waan isku daraynaa wadarta guud kadibna average baan kasoo saaraynaa qaabkaasaa markaa kusoo kala baxayseen gruupkan afartiinan cosab animal iyo bytesotech iyo colhayo dental iyo astur labaa laga rabay inay soo baxaan waxaana xaq u yeeshay ama ku soo baxay cosab animal oo uu cismaan ka socday iyo bytesotech oo cabdixamiid uu tartamayey haddaan raaciyo natiijada intay kusoo kala baxeen cosab 79.25 celceliska byteso 75 halka colhaye 68.25 asturna 64 saas aa kusoo kala baxdeen. Assalaamu calaykum.